sidoo kale intaad guriga joogto aadan tagin goobtii lagugu wareysan lahaa guriga adigoo joogo istijaabi su'aalaha isweydii ka jawaabtaad bixin lahayd adigoo u sii galaya tababar maalintaasi wareysiga aad u balansan tahay sidoo kale aanu gudubno baldhankay maalinta wareysiga qodobka ugu muhiimsan oo mar walba kaalinta koowaad soo galayo waa qodobka la xiriira waqtiga inaad ilaaliso way you have to be punctual waqtiga lagugu talagalay waa inaad timaadaa ma aha inaad kasoo dib dhacdaa hadday suuragal tahay xitaa hal saac ka hor imaaw taasi adiga ay fursad ku tahay dhibcayaad ku yeelaysaa waxa tahay shakhsi ilaalinaya waqtiga ma aha waqtiga lagugu talagalay inaad saacad ama nus saac aad kasoo dib dhacdo lagu sidoo kale waqtiga waa mid aad iyo aad muhiim u ah waa inaad waqtiga ilaalisaa oo dan kasoo dib dhicin waqtigii lagugu talagalay hadduu yahay wareysiga tusaale qaab fogaal araga ama virtual waxa afka qalad lagu yiraahdo waxa laga doonayaa in qalabkii aad diyaarsataa codka aad iska tijaabisaa samaacadda microphone-nada wax walba inaad iska diyaarisaa goobta aad joogto dharkaad xiran lahayd in buuqa aad iska yareyso buuqa ama dhawaqa tusaale baabuurta iyo waxyaabaha lamidka roobka iyo waxyaabahaas waa iska normal oo dhib ma lahan balse buuqa kale dadkii waxyaabahaasi waa inaad iska ilaalisaa idina taasi waqtiga waa very critical aad iyo aad ayuu muhiim u yahay labiskana waan idiin soo sheegay isagana waa qodob aad iyo aad muhiim u ah marnaba ha fududaysanin waa inaad si dhammaystiran u labisataa oo aad noqotaa qof dabcan la daawan karo sidoo kale noqo qof aan khalkhal iyo walwal midna ku jirin tartiib istaji adigoo la hadlaya saaxiibka ama walaalka la sheekaysanaya iska noqo waxba khalkhal ha gelin dadkan dabcan way kugu cusub yihiin sax laakiin lama rabo ama ha noqonin in macnaha dadkan aad ka cabsanayso ama aad khalkhal dareemayso sababtoo waxa ka lumaya halkaasi ku baxaya su'aalihii inaad sidii lagugu talagalay aad kaga jawaab wayso sidoo kale waa inaad noqotaa su'aalaha markaad ka jawaabayso qof su'aalaha la weydiiyay sidii lagugu talagalay kaga jawaabayo su'aalaha ha noqonin qof kaga jawaabayo macnaha su'aalo iska jawaaba oon macno ku fadhin waa inaad ogaataa waxaad ka jawaabayso maxay yihiin waxaan ma yahay wax adigu aad u taagan tahay waxaad aaminsan tahay sidaas ayaa laga doonayaa si run ah oo dhammaystiran kaga jawaab su'aalaha marnaba su'aalaha lagu weydiinayo waxba qalada ha ka gelin sidoo kale waan idiin sheegay haday qaybtii horeysay qalin iyo buug ama warqad aad haysataa maxaa wacay waxaad ku qoranaysaa waxyaabaha aad u baahan tahay haddii ay noqon lahayd wax lagu weydiiyo su'aasha haddii aadan fahmin xitaa igu celi haddii karta waa dhammaan waxyaabaha lagaaga baahan yahay inaad tix raacdo marka maalinta wareysiga laga qaaday oo u fariisanayso wareysiga sidoo kale tusi dadka in waxan adiga wareysiga laga qaaday uu yahay hawshaadi shaqadiga aad qabanaysay wax culays aysan kugu haynin isla markaana si dhammaystiran oo qurux badan oo xirfadi ay ku saleysan tahay aad u sameyn karto tus dadka oo u sheeg una qeex haddii aad meel kale ka soo shaqeysay aad u faahfaahin karto wareysiga markuu dhamaado intuusan dhamaanin horta su'aalo weydii soo sheegay weydii kugu celinaya adigoon su'aal weydiin ka soo tagin meesha waxay doonayba ha noqoto laakiin su'aal macquula weydii dadka su'aalahan ha ka soo tagin marka wareysiga dhamaado waxaad leedahay waad mahadsantihiin dadkii u mahad celi la sheekayso haddii aad su'aalo weydiin karto oo ka baxsan arrimahan waad weydiin kartaa oon su'aalo oon macnaha anshaxa xumaan ahayn